عثمان بن عفان الله الرالي كان نقضي الضومي سي الضوم كميدو ويا مالين وعود العقد انقاض أبو ذر الغفاري وقي هدو العقد أبو ذر هدو العقد كاقاتنا حربات هاي وكير حر واكو حري أبو ذر مركا مقالة مدينة دبدة دقنا ربدا من الليلة وعثمان بن عفان باكل هلكا أقول رضو وأيوان زايد أبوها قرني نبي قد مداينو جوغي سوق دات كان تابعين الدين تقصو قدال دنبكي مدى الدوية اللي مادين ودنا ونفين يا سوق دركي نبي محمد وكقد تيبو ستاولي عريش نبي محمد وكوغانا وقلا عنتدي عهدي نبي قول نبي قال لعوني ولي وعنا سوق أبو ذر الغفاري رضي الله عنه marka ninkii adoonka lacagtii buu la soo orday meesha ma soo dhiganin baa lacagtiidii kara soo salaama hinde mani baa lacagtiidii iska jecelnahay oo yimiday oo salaamay wuxuu ameerkii muuminiinta Uthman baan salaan kaaga sida waan ka qaaday bal waran isaga ka waran daar al khilaafa ka waran masjidii nabiga ka waran muslimiinta xalqooga ka waran markuu uga waramay ayuu yiri lacagtana uu soo dhiibay wuxuu yiri Abu Dar u geel lacagtaas markaasuu maxaan ka dhigaa wuxuu de haw kaalmeystay adduunyadiisa markaasuu yiri ku celiyo waxaad ka tiraahdaa anigu uma baahniyay cid iiga baahi badan baa Madiina joogtay cidaasi ka dhabu yiri inaga maanta lacag nin diidi kara uu yar yahay maanta zamankan waxay naga dhaadhacsan lacagtu waxbay tartaa iyaga waxa ka dhaadhacsanay may lacagtu wax ma tarto ka wax taro waa ilaahay baahideeda ilaahay baa daboolaya xaajaadkayga ilaahay baa quminaya waxaan u baahanahay ilaahay baa yahay cid kale wax ima hayso lacag uma baahni baa ka dhaadhacsaneed iyaga laakiin ilaahay amarkiisa u baahanahay ducaan haysta salaad baan haysta istighfar baan haysta quraan baan haysta a'maal baan haysta qalbiguna wuxuu ku xasilay waa diin weyn adduunyo ma markaasuu ninkii yaab war iska qaado may u celi markuu arkay inuu ninka lacag uunan u jeedin uu qaadanayn ayuu runta u sheego wuxuu ku yiri amiirka wuxuu igu yiri hadduu Abu Dar lacagta ka qaato xor baa tahay buu igu yiri ar walaal adoonnimada ha ka baxe xoreeyo lacagta niga qaado buu ka yiri markaasuu ka qaadan maayo waxa doonta akhri markaasuu loriga qaado oo in xariiso maxaa kugu naxariista hadaa lacagta iga qaadato waan xoroobay buu ka yiri wuxuu ku yiri Abu Dar dhageyso hadalku ku yiri eeg hadaa adigu qaadashada lacagta aan ka qaaday aad ku xoroobayso ana adoon baan ku noqonayaa buu yiri marka halka adoo aad ka baxday inaan anu galo ma jecli buu ka yiri anu adoon xor aan ahay buu xor bas ويا نكي لعقت سجود عثمان وكان وعرواد وجيد مركز يقول هاي هذول لعقتها كاقات حربة هاي وهذا وجيد نكي إنه يهين آخره لأن يوجد معها أبو ذر الغفاري لعقت دليل ما إنه هالشقي سقف كمسلم كلام له لكن الدنيا ده قعنتها كويسو دين تادي آخر هذا قلبك كويس ما أنت الدنيا دي إذا ما أنت الدنيا دي نفوشي صحابته الدنيا ده صدق فرسك الله فولو أيه وفوشنا يعني يكو الدنيا ده يكا فوشنا إنك أنا ما أنت الدنيا دي بين نفوشي ما أنت وقتك كرلانا دين تبى كبر كرلانا دين تاني وقت كوب حيل العلماء وليهين وقت وكوب حين كرلانا حي ما هاينا هايستا وهاينا هايستا الدنيا ما هي كلها دون هايستا الدنيا ده إن الدنيا ده لا جوكتم بدون هايستا هاي كتير بالدنيا ده كلها لما نعى الدنيا ده كشقيسان لقمنا كشقيسو حلال مرد نقو لكن وحابو قاعدة الدنيا ده وبلاغ آخر كوكاد مويانه إيدا هكذا كان هدف كاجي آخر ده ينكالو وينان اسمع بن عفان الله رأى لك النقضي نبى نبي قوي مدوري قبل بالليسيي وحكوا أقل قلنا ما هيستو عثمان وتقبوكي مركب ويمد عثمان بن عفان وحارك عثمانو
خادم كيسا كو هايستا دبارة فينوس كان محادو بختين ويدي مركز نكي با ويابا وحوري ونكا خادم كيسا كو هايستا فينوس كان محادو دمين ويدي ماي كولا تاينو أديك اللعقتي aad gogol iyo dhar iyo weelal islaanta caawa aad aroosada aad ugu iibin lahayd inaad ka heli ilama agu yiri uska kacay isma ma ninku yeeray warkaale kale xagad u socotaa wallahi de waxaan u socday war kale ahayd war kale meesha ka socday buu yiri markaas maxaad aragtay maxaad u socoto de nabiga ay ka soo diray buu sallallahu alayhi wasallam yiri Usmaan u tago waxaad ku tiraahdaa waxa uu nabi Maxamed ku amray wixii caawa aan arooska iyo reerkayga ku aqal galin lahaa hadday gogol tahay hadday dhar tahay hadday biil tahay hadday weelal tahay Usmaan ka qaad nabigu ugu yiri maxaad u kacday buu ugu sheeg weyday de waxaan arkayaa ninkaaga Fayrus ku dagaalamaya wax bixinaya buu yiri Fayrus baad ku dagaalamaysa oo ku haysta qaadimkaagiye wuxuu dhageysa buu ka yiri Faynuska halka iska shidmaayay shaqa adduunyo iyo shaqa aakhira midna lagu ma hayn laakiin tan adiga ku siinaayo waati halkii loogu talagalay ku baxday hoo qaada buu ka yiri kiish lacag uu dhiibay saraafka iska ilaalinayeen xoolahooga meesha ilaahay ugu talagalay ku bixinayeen meesha ilaahay u diidayna xoolahooga way ka ilaalinayeen inagana aroos baa lagu leeyahay $30,000 bay ku bixiyeen aroos $30,000 bugbac